xaflad si heersare ay loo soo agaasimay inay ka qayb galeen boqolaal Soomaali ah oo isugu jiray waalidiin iyo arday ayaa lagu qabtay magaalada Örebro ee dalka Sweden. waxaana ujeedada xafladan ahayd sidii ubadka soo koraya ee Soomaaliyeed lagu dhiirigelin lahaa muhiimadda ay leedahay barashada afka hooyo ee Soomaaliga ah iyo hidaha iyo dhaqanka aanu dhaxalka u leenahay. xafladan ayaa waxaa abaabulkeeda iska kaashaday macallimiinta afka hooyo ee magaalada Örebro iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee magaaladaasi ee Africa School Culture Center, iyadoo ardada dugsiyada sare ee magaalada Örebro ay soo bandhigeen qayb ka mid ah cayaaraha hidaha dhaqanka, suugaan ka tarjumaysa qiimaha ubadkan u leeyahay barashada luqadooda iyo riwaayad aad u xiiso badneed oo ka tarjumaysa iyana qiimaha dhaqanka iyo afka hooyo. dadkeena dhibaata u timido dhawr uu ka ordo haweenkii dhaqankan ku dhintay nolosha xabad baa dhammaan iyo abaar baa dhameysay dhulkii u soo weelaan ka dhiganaa waxaan dhuminay danteena iyo dalkeena iyo dadkeenuba waxaan baahnooday ee dalkeen ay kuma daynay waan diinay marankiis nacbad diga jidkiisa aan daraajabana dilin baa qaadnay sidee daabo loo helay dad jecel u shacbinaa ummadaha waxaa wadada hagar leeyahay habka toosan lagu hayo kumidaysan aragtido hanaankood garsoor yahay hadalkood shaafi yahay kumidooba hadafkiisa munaasabadan oo sidoo kale lagu soo bandhigay buugaag fara badan oo ay qoreen qorayaal Soomaali ah ayaa waxaa dadkii lagu casuumay ka mid ahaa jilaaga weyn Cabdi Heybal Ambad. markan hooyada leeyahay dhaqanka horta noo keena dhaqanka halkee laga bartaa afka halkee laga bartaa dee afka hooyaaba la yidhi afka waxaaba la yidhi afka hooyo marka afka hooyo lagu leeyahay bara dadka hooya barta waa farmaadar imisaad u haasa ah hawl iyo dhibaatiyo hooyoy qaadidaadii hareerihii ku daaleen ama aad hamido ood habeen seexan wada hurda iyo naftaadii anuunii huraysay habka nolosha guud iyo hidaha iyo dhaqankana adaa noo horseedaye hayinkan dushiisa ku hadaaq bartay hooyo horaadka iyo naasaha igu soo habtay hooyo abaalkaaga hooyoy haladaadin mayne adna hore u soco hooyo. annagu waxaanay macallimiinta dhigtaa afka Soomaaliga kana caawisa maadooyinka kale marka magaalo ahaan waxaanu isku daynaa sanad kasta inkastoo sanadkan aad u abaabulay welina moodeen wax qabiyihiin ujeedada aanu soo abaabulay waxa weeye hab dhaqan weeye loogu baran karo saddex wax la isugu gudbiyo kow ardaydiina af Soomaaligii iyagoo indirect aan dareemaynin intay riwaayada dhigayaan midaanu gabay ku qaybsiino iyo mid basi aanu ugu dhiibno inaanu barno afkii Soomaaliga uu noqdo inay training ku qaataan taas macallimiin ahaan ta ugu muhiimsan weey ta labaad inay dhaqan leeyihiin Soomaaliyeed oo culture-kooda iyo dhaqankooda hidahooda dharkooda aanay ka fogaanin maadaama ay qurba joogaan oo isku wada xidhno dhalinyaradii waxa way xaqiiqdii barnaamijka waxa soo abaabulay oo sanad walibaan barnaamijkan bilownay oo abasla wadnay waaye waa macallimiinta afka hooye magaalada Örebro iyo jaaliyada magaalada Örebro ee Soomaaliyeed Africa School Culture Center oo ah jaaliyada Soomaaliyeed ugu weyn magaalada marka labada kaliyana ma aha macnaha runtii magaalada oo dhan ka wada qayb qaadatay waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan lagu dhiirigelinayo ardayda Soomaaliyeed iyo haweenka iyo caruurta iyo rag iyo dumarba faa'iido aad iyo aad u balaaran ayuu u leeyahay waayo ubadka waxay u baahan yihiin dhiirigelin aad u wanaagsan inay aad iyo aad u bartaan luqadda Soomaaliga marka aad iyo aad u wanaagsantahay. bismillaah magacayga waa Ismahaan Cabdi dareenkayga aadaan u faraxsanahay because xafladeena waxay u dhacday si aad u fiican iyo sidaan filaynay. hadafka ay kala haayeen barnaamijkan wuxuu ahaa in dhalinyarada ay ku dhiiradaan dhaqankooda oo ay bartaan waliba dhalinyarada afka Soomaaliga afka hooyo barata
halkan ku barta waxyaalaha ugu muhiimsan oo afka hooyaba loo baraya waxa weeye in la adkeeyo dhaqankooda marka waxay maanta noo tahay farxad aadan malayn karaynin waxaanu u jeednaa dhiirigelin aad u weyn in barnaamijkani uu u keenay ama u leeyahay ardada waxa weeyaan barnaamijka hadafkiisa wax kale maaha ardada inaan ku dhiirigelino inay u baraarugaan in ay noqdaan kuwa u istaago danahooda guud marka taa ayaa keentay inaan maaragtay maamulkoo dhan barnaamijka inaan u dhiibno ardada oo annaga halkaa kor aan ka hagno marka taa bay ahayd sababta keentay barnaamijka mustaqbalka fogna waxaan rajaynaynaa in aan sii wadno sanad kastaba bisha November baan qabanaa barnaamijkan waxaan halkan ka muujinaynaa ka maamul ahaan Al-Azhar Schoolan inaan garab taaganahay macallimiinta Soomaaliyeed xoogga saaraya sidii ay u bulshan lahaayeen ama ay u soo saari lahaayeen shiilkeena Soomaaliyeed halka ku nool inay isticmaalaan oo ay waxaan ku hadlaan luqadooda afka hooyo ka iskuul ahaan waan taageeraynaa dhinac kasta ay ahaato wacdiga iyo diinta wanaag baa la wari jiray wiilal qala iyo walaaha muulahayn wadanku wiilal qala iyo walaaha muulahayn wadanku ee wadaadinta qalad weerihiyaba yimid wadanku ee wadaadinta qalad weerihiyaba yimid wadanku ilaahayo weheen xaqeheniyada waliya adaan kuwa kihisha wadahankayga wixii ka dhacay ruwaayadu waa ku jiray dhaantana waan dheelayay mar walaa horta aad u fiican tahay dhaantada in la barto waa muhiim faraad dhaqanka hadii qofka u qonin dhibkeeda leedahay laakiin markaa baratid waxa waa xiiseena mar walba ku naqane waxaan kula talin lahaa inay dhaqankooda haystaan diintooda haystaan meel walba joogaan isku xirnaadaan waxa waa Soomaali way ma kala go'do gacmahooda jarbay wax ku qabtaan gacmaha iska haystaan kala go'in mar walba aad mudan waxaan halkan aad iyo aad ugu hambaleynayaa ardaydii macallimiintii iyo jaaliyadii soo diyaarisay barnaamijkan loogu talagalay luqadda hooyo iyo dhaqanka barnaamijkan oo barnaamijkan ka soo shaqeynay ahaa muddo dheer annagoo kaashanayna macallimiintayada iyo ururada kale jaaliyadda Horn Africa taasi oo maanta noo suuragelisay inaan halkan ugu qabanno oo bulshada dalka Sweden iyo bulshada caalamkaba aan tusno luqadayda hooyin meel walba lagu baranayo aad iyo aad muhiim u tahay in la barto xafladan oo ujeedadeedu ahayd in la dhiirigeliyo ubadka Soomaaliyeed ee soo koraya isla markaana la xasuusiyo qiimaha hidaha iyo dhaqankeena oo u leeyihiin ubadka Soomaaliyeed ee soo koraya maadaama lagu sugan yahay wadamo qurbo ah ayaa waxa ay ku soo gabagabowday jawi aad u wanaagsan Cabdiraxmaan Xudayfi Somali National TV Örebro Sweden